maamulka gobolka Togdheer ee degmada Burco oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Togdheer oo labadii cashe u dambeeyay ay ka socdeen mudaharaad laga soo horjeedo xadhiga iyo xukunka Cornel Dolaal barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Abdiraxmaan Muraad taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Maxamed Cali Faarax ayaa dhamaantood waxa ay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu iyagoo bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo amniga gobolka Togdheer baaqaan u soo jeedinayno dadweynaha gobolka Togdheer ku nool oo bisha 12keedii iyo xalay oo ay iska dambeeyeen laba mudaharaad oo la sameeyay waxaan ugu baaqaynaa in dadweynuhu nagala qayb qaataan nabadgelyada guud ee gobolka nagala qayb qaataan inaan taayir la gubin nagala qayb qaataan inaan gaadiid la jibin kullu gudi nabadgelyo ahaan waxaanu diyaar u nahay awalan cid ka soo wax tabanaysa oo ka tabanaysa xukuumadii maadaama aan wakiil u nahay ayadoo dhagaxna la turin taayir la gubin loo yimaado la yiraahdo aynkaas tabashadaas jirta waxaanu diyaar u nahay cid ay imka xidhan waxaanu diyaar u nahay inaanu isaga nimaadno duqeeytidii cid walba oo hawshoodii wax ka qabano laakiin ay ka horeyso marka hore nabadgelyada gobolka in mataqaana meel looga soo jeesto muwaadiniinta ama madaxda qaranka horena waa loo xiray waana la xiri doonaa laakiin muhiimaddu waxa weeye nabadgelyada gobolka iyo degmada inaynu ilaalinaa fiican annagoo mar walba dadkayaga u turayna oo jecel inaan dhibaato xaggeeya ka soo gaarin ama xagga dawladda aan dhibaato ka soo gaarin haddana inaan nabadgelyada iyo nidaamka iyo xasiloonida aanu ilaalinaa waa nagu waajibayo sharcan wa xisan bay nagu waajibtaa waxaan ku celcelinaynaa kiiska Hargeysa ka jira iyo ninka odayga ah iyo nabadgelyada Burco waa kala laba shay weeye nabadgelyada Burco ka mas'uula inaanu ilaalinaa sida aan sheegay way waajib noogu tahay waxaan ku celcelinaynaa dhalinyarada iyo mutacalimiinta gobolka inaan mar dambe dhicin iyo haweenka inaan mar dambe dhicin in mudaharaad iyo fawdo magaalada bartankeeda ama magaalada Burco ka dhacdo nabadgelyada ana kulay ka mas'uula hawshan yar loo tileeyo ninka xiran markii hore gabdho ayaa soo galay meesha aan badnayn oo ilaa 20 hawsha ayada iyo joojinteeda iyo amardiidada iyo hawsha ay sameeyeen la ajligeenu qaqabanay ee cajaladu ka halka ka sii bilaabantay kullay imika xalay oo kale mudaharaadkii dhacay daada waxa ugu badan waa 27 jir weey iyo wixii ka hooseeya 15 jir 20 jir waxa weey waa isku age weey waa waxaan leeyahay nabadgelyada Burco ayay u dantahay dadweynaha waxaan ka codsanayaa inaan kullay gaadiid waxaan badnay baa la jabiyay dadka duca meelaha maartay ka soo sida igu maqaalay inay dad waaweyn ku jiraan dadka waaweyn hanoo yimaadaano gudiga nabadgelyada ha u yimaadaano waxay tabanay hashadka khayrka lahaa waa bishii barakaysnayd waa bishii cibaadada waa bishii xasanaadka iyo sadaqaadka iyo waxa weeyaan waxa wanaagsan iyo asxaan baynaska laga shaqeynayo maaha bishii sharka ma daharad horena kama jirin dib horena may oolin ninkaas sarkaalka ah ee korneylka ah ee militariga ah Jaamac Maxamuud Aadan Dolaal arrintiisii ay ka kacday xadhiga Dolaal la dhagax waxba ka tari maayo iyo ciidanka oo la laayo iyo baabuurta la jajabiyo iyo guryaha la jajabiyo waxba ka tari maayo dariiq loo maraabay leedahay ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.